gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolje ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta si wada jir ah u cambaareeyay xarigii loo geystay wariyaasha ka hawlgalayay telefishinka Hon Cable TV iyo telefishinka Somalisat uga hawlgalayay magaalada Gabiley xarigaasi oo maamulka ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen wariyaashan gubo بالحاكمka kulmiye ee haatan talada haya gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolje Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wuxuu sheegay in xukuumadda Somaliland ay sida ugu dhaqsaha badan la u soo celiso xorriyadoodii wariyaashaasi ka hawlgalayay oo ku cambaaraynayo inta lagu xirxiray magaalada Gabiley suxufiyiintaas oo shaqayn jiray TV-yada Hon Cable TV iyo Somalisat TV xariga waxaan cambaarayna xariga loo geystay labada wariye ee ku xidhan Gabiley taasoo maamulka Gabiley ku xariga u geystay wariyaasha waxaan leenahay maaha mid waafaqsan sharciga u yaala Somaliland saas daraadeed waxaan ku codsanaynaa xukuumaddu inay xorriyadeedii u soo celiso saxafiyiintaasi ay xariga u geysatay ta kale barasaabka gobolka Gabiley wuxuu ahaa nin saxaafadda soo maray lagama filayn inuu koornaha kale istaago oo saxafiyiinta ay xariga caburin oo kula kaco waxaan leenahay tallaabooyinka noocaasi ومد كهر من يحرية القول كا يسحفة مدح بنان. دوكله قدوميها حزب معارض كوطني عبد الكريم موسمال أي فريموين يدل عين آد مجوينو صوتشي حكومة هاتن تلاذا هاي سي. فتدير وحي كهر من السا ديمقراطية دائما كفارنا كنا على نهضة إنه هي سمالنا مدحين السياية وحلاهي مدحين موحد اللودي إذا عدي قاري السيرف تاخ وصارني يا أي كسية كسو الرميان دحول فينها ما تقولها قوة taasoo daahiriyay xil waay adiguna waxa xiraysaa TV sharaf iyo meeqaan kale oo umada u waramaya oo ifiraysa ayo cadeynaya soo bandhigay fiidiyo iyo waxay umadu rabtay waxa maanta cadeynaysa xukuumadda Siiraayo inay cagta saartay dhabadii ay kaga tagi lahayd dalka ay kaga dhici lahayd salaanka wadanka halkii laga raacay maanta waxa weeyaan saxaafadda ay xilxirayso weeyaan saxaafadda ay uga juuleynayso weeyaan saxaafadda ay caburinayso weeyaan haddii aan xorriyadooda loo soo celin saxafiyiinta haddii aan lagu xaq dhowrin shaqadooda waxay arrintaasi keeni doontaa عواقب ما أدوين وحنا يدل كده حسين دونها عرها هل من الليري صحفية الشقدي يصير مهندي يسوي حويان إنه ضد كوس صابر لقاه وحي وضن كدعية هذه اللي راهو الشيء وحي وضن كسر دعية إسكهوري ما دي فوضى قصية قلق السياسة وضن كل دونا وحنا نقول باقي إن حكومة ما تطلع هايسا إن الحرية دول السد دق بلا الشروط يقصوا دي سلة بدأ وريه كل حرن قبل كقبلي سيرين وحلاهي dadku haday ku diideen oo ay qumnaceen oo ay ka hor yimaadeen xukuumadda ay diideen wariyaashu waxay sameyn doonaan iyagu adiga amaan bi ku sameyn doonaan waxay dadku rabaan wariyaashu ka warramaan waxay dadku rabaan wariyaashu sheegaan saxaafaduna way madax bannaan tahay karaha ka run sheega madaxweynuhu Ahmed Diiriye Ciltire Radio Hilaa magaalada